الله الرحمن الرحيم maanta oo taariikhdu ay tahay 16 bishii shanaad 2020 anigoo Cabdiqaadir Abuukar Ibraahim kana mid ah xubnaha guddiga doorashada xisbiga Samo ana xubnaha guddiga doorashada xogeeyaha guud ee xisbiga Samo maanta oo taariikhdu ay tahay 16 bishii shanaad 2020 dhammaan guddiga doorashada waxay isugu imaadeen shirkiina waxay ku go'aamiyeen in ay maanta oo 16 bishii shanaad 2020 guddiga doorashada xubnaha guddiga fulinta iyo golihii dhexe inay u soo diyaar garoobi karaan nin walba ninka danaynayo inuu xilka xogeeyaha guud ee xisbiga Samo inuu qabto maanta laga bilaabo in uu soo gudbisan karo araajiyadiisii iyo wixii macluumaad la xiriirana wuxuu la soo xiriirayaa xafiiska xisbiga Samo xafiiska arji qabashada xisbiga Samo iyadoo guddiga ay shaqeynayaan maalin walbana si joogto ay u shaqeynayaan arji qabashadana waxay ku eg tahay 16 bishii lixaad 2020 ay ku eg tahay waxayna ka bilaabanaysaa 16 bishii shanaad 2020 arji qabashada bilaabanaysaa waxayna ku eg tahay bishii kale xigta 16 bishii lixaad 2020 ay ku eg tahay guddiga sidaas ayuu go'aansaday nin alla ninkii danaynayo inuu xilkaas uu qabto guddiga fulinta iyo golaha dhexe waxaan ogeysinaynaa kuwa gudaha jooga ama kuwa dibadda jooga waxaan ogeysinaynaa in ay yani mataqaana ay ka soo qayb galaan ay araajisiyadoodii iyo siifigoodii xogeeyaha guud ee xisbiga kulankaas oo loo soo qaatay laguna soo gabagabeeyay maanta ayaa waxaa lagu go'aamiyay in maanta oo ay taariikhdu tahay 16 bisha shanaad laga bilaabo in la bilaabay arji qabashadii xubnaha u tartamaya xubinta xogeeyaha guud ee xisbiga Samo waxayna ku eg tahay maalinta 16 bisha lixaad 2020 inta ka horeyso waxaa dhammaan taageerayaasha xubnaha golaha dhexe guddiga fulinta cid kasta cidii daneysaysta xubnaha xisbiga guddiga fulinta waxaa cid alle cidii daneynaysa in ay ma aragtay ka mid noqoto ama isu soo sharaxdo xilkaas xogeeyaha guud ee xisbiga waxaa u furan maanta laga bilaabo in uu soo gudbiyo macluumaadkii iyo arjigii iyo macluumaadkii ku xirnaa qabashada xilkaas marka dhammaan waxaan u sheegaynaa taageerayaasha xubnaha xisbiga xubnaha golaha dhexe xubnaha guddiga fulinta cid alle cidii daneynayso in ay soo buuxiyaan shuruudaha iyo waraaqaha ku qoran ee ay soo gudbiyeen guddiga doorashooyinka waxaan ku adkeynaynaa in si loo dhameystiro macluumaadka ay u baahan yihiin ama kale ay u baahanayaan in ay soo dedejiyaan si loo buuxiyo nidaamkii iyo qaabkii loo baahnaa in oo ma aragtay loo saxo waxaan intaas ku soo gabagabeynayaa baafintii iyo qaabkii loo ma aragtay loo qaban lahaa ama loo soo gudbin lahaa araajidii iyo macluumaadkii la xiriiray waxaan ka mid ahay gudoomiyaha guddiga doorashooyinka meelgaarka xogeeyaha guud xisbiga sinaanta ammaanka midnimo ololeynta Samo war waxay jira horaa loo sheegay barnaamijkan waa barnaamij shaacin waxaa kulan muddo fadhiyay guddiga doorashooyinka madax meelgaarka ee xisbiga Samo waxay go'aan ku gaareen in maalinta ay bishu maanta ay taariikhdu tahay 16 bisha 2020 ay shaaciyaan in araaji qabashadii ay maanta bilaabatay oo ay tahay 16 bishii shanaad ayna ku eg tahay 26 bishii lixaad 2020 shaacinta saasay u bilaabanaysaa waxaa kaloo jirto waajibaadkii waa kana asoo qoraal ee waa kana waxaan iga doonaa website-yada iyo TV-yada
iyo WhatsApp kan dhigi doonaa haddii ilaahay raa iyo Facebook kan waa waajibaadkii kan waa shuruucdii doorashooyinka oo qofka musharaxa oo yani oo qaada lahay waxaan dhigi doonaa WhatsApp-yada TV-yada iyo waxaan dhigi doonaa Facebook-yada waxay intaas badan walaalay hore u sheegay in ku-xigeenadeyda waxaan ahay gudoomiyihii xisbiga doorashooyinka waxay hore waxa uu sheegay ku-xigeenadeyda intaan ayaan soo gabagabeynaya